أولاً سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن دعواتنا قرح بدل له هذي ونكسن هذي لنا حي ملول بعد نقدر نسان يسير بمقال كين يديسو كهرباء هل كنا نقدر نسان وبرتين يوتيوب كلنا حي أهل الصومالي ميديا جروب يقولوا برتين فيسبوك كلنا حي أهل الصومالي فيسبوك مركل واحد لنا حي حبي ونكسن سنهر وجود بالني برامج ديني إني بلابن دونا وحي قدام بيا طبعا كبيشة أي نقول جرنا أغسطس إن شاء الله عاو برامجكينا waxa uu ka bilaaban doonaa sideen ku noqdaa arday wanaagsan barnaamijkeena sideen ku noqdaa arday wanaagsan hore ay idin kugu ballan qaadnay inuu noqon doono barnaamijka ugu horeeyo ee aan ku bilaabi doono hadaba mar hadaad tahay arday sidee ku noqon kartaa arday wanaagsan oo booskii loo baahnaa soo buuxiyay shuruudaha lagaaga baahan yahay ama waxyaabaha lagaaga baahan yahay mar hadaad rabto inaad noqoto arday wanaagsan waa laba shayaabood ugu waaweyn labada shayaabood ugu waaweyn aad ku noqon kartay arday wanaagsan ee guuleysta waxa ay kala tahay marka koowaad inaad time-kaaga ilaashato ama waqtigaaga soo hadaa waqtigaaga ilaashato ama time-kaaga aad ilaashato waxa ay ku noqonaysaa fursad aad u qaali ah oo waxa ay ku noqonaysaa mid wax badan ka saacida mid labaad ee waxay tahay aad ku noqon kartay arday wanaagsan inaad sameysato jadwal adigoo ku qaasa soo hadaa jadwal samaysatid oo aad yacni time-kaaga ilaashatid oo waqtigaagana ay ilaashatid waxay ku noqonaysaa mid successful ah oo aad ku guuleysatay tan xigta waxay tahay inaad noqoto qof in badan wax aqriyo inta badan labada socono ardayda Soomaaliyeed waxa ma aqriyaan waxay sameeyaan kaliya buugga markii cashirka dhamaado way qaadaan guriga geeyaan subaxii markii iskuulka loo soo socdo kaliya la soo qaadaa intaas indhaha la soo mariyaa taas looma baahna mar hadaa tahay arday waxa loo baahan yahay inaad waqti walba wax akhriso macalinka kaliya waxa uu ku siiyaa waxa ay tahay boqolkiiba 25 kaleetana adaa raasanaya soo adiga hadaa in badan wax akhrisid waad yacni ku ekaanin macalinka wuxuu ku qoro kaliya waxaad noqonaysaa run ahaantii arday guuleystay oo loo baahnaa arday guuleystay kaas oo u baahan inuu yacni hadaf yeesho hamiga uu nolosha ka leeyahay gaaro marka saddex waxyaabood aan soo sheegnay oo waxay tahay koow inaad waqtigaaga ilaashatid laba inaad jadwal samaysatid oo ku kala socnaadaan xilliga wax aqrinaysid xilliga ciyaaraysid xilliga cibaadaysanaysid midda saddexaad oo ah inaad leedahay akhrin badan oo aad inta badan tahay qof wax akhriya run ahaantii ardayga inta badan wax akhriya waa uu ka cilmi badan yahay ardayga kale aan waxba aan aqrinin xilli walba xilliga daraasadaha socoto ama xilliga imtixaanka nooc walba ay ahaataba marka insha Allah waxaan rajeynayaa in inta badan ardayda Soomaaliyeed wax badan ay aqrin doonaan si uu noqdaan arday guuleystay caawan barnaamijkeena halkaas ay ku soo koobi doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa maalmaha soo socda ama isbuucyada soo socdana inaan ka sameeyno barnaamij weyn iyo wareysiyo aynu ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed in aan yacni barnaamijkan ugu dhigno barnaamij ay inta badan diiradda saaraan oo ay inta badan sameeyaan akhris badan iyo waliba xifdis badan iyo inay waqtigoodan ilaashadaan insha Allah barnaamijyadeena tixana ay noo ahaan doonaan haddii ay baraali ka noqdo insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana inaad nagu dhiirigelin doontaan barnaamijkeena hadda waa bilow insha Allah waxaan rajeynaynaa intaan in ka badanba inaan sameeyo